inaan kula wadaago afar tilaabo oo aad qaadi kartid si aad ganacsigiisa u bilowdid. muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan kuu sheego tilaabooyin aad maantaba qaadi kartid si aad ganacsiga aad bilaabaysid ama aad rabtid aad u bilowdid. way jinabiyada khayr sharaftan soo dhawaada. waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka dhigrisid, haddaad nagu cusub tahay inaad bogga follow ku dhufatid, haddaad YouTube ka daawanaysid aad subscribe lahayd. dadka inta badan waxaa haysta yani bilaabitaan la'aan. qofku waxa laga yaabaa inuu lacagtii haysto, caqligii iyo maskax ku filan haysto, khibrad ku filan haysto, dhaqaale ku filan hayo, laakiin uusan ganacsigii uusan bilaabin oo weligii iska soo taagnaada. waxaan xasuustaa asxaabtayda dad badan oo kamid ah aan is wareysanay ama qayb kamid ah waxaa xasuustaa yani aan mar hore u wareysan ku yiri ganacsi bilaabaysa 5 sano kor oo kale uu yiri ganacsi maanta bilaabaya waa ka saysa 5 sano kadib haddana is wareysanay qofkii oo weli ganacsi bilaabay. marka asxaabta noocaas yani idinkuna waa leedahay qof kastana uu lahaan karaa yani waana u badan yihiin dadka intooda badan oo ah qofkii waxa weeye maanta oo dhan wuxuu rabaa ganacsi inuu bilaabo, ganacsi kasta uu qiimeeyaa, YouTube 24/7 daawada, laakiin waxa weeye ganacsi weli ma bilaabayo. dibka haystana meesha waxa weeye qofkii waxa ka maqan actionkii, ficilkii ayaa ka maqan. muhiimaddu marka waxa weeye weliga allaha wax walba 100% arki maysid inta nolosha adduunkan. wax walba waxba ka dhimanaanaya يعني أما 80% أما 90%. marka waxa talada koobaad aan ku siinay waxa weeye horta waxa heli kartid weliga ku bilow. yani maanta oo dhan ha sugin in adduunku 100% ku noqdo perfect ku noqdo kadib marka aad ganacsiga aad u baahnayd iyo wixii aad u baahnayd aad bilowdid. taas marka waa fikrad khaldan, laakiin taa beddelkeed wixii aad heli kartid marka diyaarka kuwa wax ku bilow kadibna hore u sii soco oo ganacsiga isaga laftirkiisa lagu koraa, wax lagu bartaa, يعني لو ديفلوب كروبا لفتكيس ما قرنيسا. marka insha Allah waxaan rabaa inaan idila wadaago afar qodob ama afar tilaabo oo aad u baahan tahay inaad bilowdid. ganacsiga marka bilaabayso uma baahan maanta inaad fakartid, maanta inaad planning taagnaatid sanad, maanta inaad planning kala hadana taagnaatid sanad laba. waxa looga baaro waxaas oo dhan uma baahan. shaqada dhan ama tilaabooyinkan dhan waxaad ku dhameyn kartaa 2 bilood, bil, 3 bilood, 4 bilood, 5 bilood hadaa ugu badatid. laakiin waxa taa ka dambeeyo uma baahan. yani ganacsigaada wuxuu rabo ha ahaadee waa bilaabi kartaa automatic ee hore uga bilaabi kartaa insha Allah. qodobka koowaad horta u baahan tahay waxa weeye inaad degsatid qorshe. waa qodobka iska asaasiga ah. qorshe ganacsi degso, qeex ganacsiga gelaysid, wuxuu yahay, waxa qabanaysid, sida u shaqeynaysid, waxaad ganacsiga kale uga ficnaan doontid, sida marketka uga faa'iideysan doontid, sida istaraatiijiyada geli doontid, khidmadaha isticmaali doontid iyo wixii la mid ah ayaad u baahan tahay. okay marka taa waa qodobka ugu horeeya. yoolka u baahan tahay ganacsigaada haddii wadanka joogto ku xiran tahay diiwaan geli, loo magaci soo qabso, diiwaan gasho, soo sargale iyo wixii la midka meelaha qaybtoodna uma baahna qofka inuu ganacsiga diiwaan geliyo. qodobka labaad waxaad u baahan tahay ganacsiga mar haddaad diiwaan gelisay nidaamkii, fikraddii waxaana aad soo fariisisay oo wixii aad geli lahayd almost aad ka soo gudubtay. planninkaas ugu dheeraan kara adugu bato bil baa kugu filan. haddaad si toos ugu soo jeedid bil baa kaa badan inaad ganacsiga u baahanto dhan fariisisay, yani wixii qoraal oo document ahaan qoraal ahaan u jeestay. qodob kale waxaad u baahan tahay in aad maxaa raahdaa ganacsiga aad u hawlgashay oo aqoomadiisii furtid oo dokumentiyada u baahanaa samaysatid oo logooyinkii, dhisaynadii, bogogiisii, wixiisii aad maaragtay samaysada u baahan tahay. qodobka saddexaad waxaad u baahan tahay in aad waxa weeye maadaama wixii kaloo dhan isku soo dabardatay aad adeegii bilowdid. hadduu adeeg ahaa, hadduu alaab ahaa, yani wax yar ku bilow. wax yar baa haysatay soo ma ah, wixii waad qiimaysatay, waa soo degsatay, waa soo qorshaysatay, akoomada u furatay, logooyinka u samaysatay, bogga u samaysatay, istaambooyinka u samaysatay, wax walba waa samaysatay. small ku bilow, wax yar ku bilow. ganacsiga qasab ma aha la tarti dukaan kala shiran, bakhaar kala shiran, ganacsi weyn oo kala shiran qasab ma meesha ku sarreysay in laga bilaabo. wax yar ku bilow marka koowaad oo ayarka industry-ga dhexdooda horta marka koowaad waa la iska dhexboodaa. waxa laba shay lagu darsadaa. xoolaha rabtaa inaad gasho 10 neef ku darso, ma fahamtay? waxa weeye marka wixii horta dhex gal ma garatay, hadhow marka wixii way ku fududaanaysaa, ku sahlaanaysaa. marka adeegii iyo alaabtii wixii aad bilow si fudud ku bilow. waxaana muhiim ah qodobka ugu dambeeya waxa weeye in aad adiga dadka provide value, macnaha value inaad la timaadid, exchange marka value-gay macnaha tusaalahan adigu inaad si ganacsigaad u shaqeeyo waa in waxa aad ka ganacsanayso iyo wax bulshada qiimo ugu fadhin karaa. marka wixii baad qofka u adeegaysaa ama ganacsiga u adeegaysaa asna lacagta ku siinaya, sidaasaad marka u shaqaysanaysaa. ganacsigaada dhan marka waxu baahan tahay afarta tilaabo inaad bilowdid. يعني ganacsi kastoo aad bilaabaysid يعني sida ugu horeysa bilaabi kartaa. haddaad ugu dambaysid 4 bilood 5 bilood waa ka badan tahay. waxa weeye wixii inta ka dambeeya waxay noqonaysaa riyo bay ka noqonaysaa ee ganacsi noqon mayso. yani hadda maanta dhan iska taagnaatid oo aad dhahdid okay ganacsi baan bilaabaya
أنا ما قرن كرو واحد سبيسيفيك أو قارو كعجة حنيمة دين بدل بطي وكحنيمة تاي وكل واحد فهم كرو وضد بعض العجة كسوي ساعة وواحد قرن كرو لكن واحد أنت كبحثا كان عسير على إنه حنيمة هذا معها وأنا سيده وفضل يسيده وغير وبلودين هرينا أتك بلودين أنت وقومي مثلا وحوي ولقى الله وقت التوبة هذا استعمال أو إن تفعل استعمال ما أنت طبعا هذا كشيء كيس إن جناح سرت إن هذا جناح سرت إن نقط إن هذا هرمر السبيس هذا وحوي يقف وحنا قانا سارية وكمون وحي لحبود أو كشقة يا هذيك وحرت الجارياش إن كشيء سوما تجارياش لحبود سبح لك وحي تبع كل الدلال الحوار لحبود على أبوه هذا قد شيء لحقا يعني وحي لحقا ماشي وهو سيسكبره كتبنا قرب الصحو مركها qof waxaad noqonaysaa un riyo ku nool hadii kale marka waxaad u baahan tahay inaad wixii ficil u bedeshid oo sheekada meesha ka saartid insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkaas inuu ku ahaa mid informative waa Injineer Rabiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.